بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا أدبان إدين سلامي waxaan idinka soo salaameynaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug insha Allah wareysigan iyo wareysiyo kale ayaan idin soo gudbin doonaa barnaamijka maanta waxa martin ugu ah Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jirde oo ah dhakhtar da'yar oo ku takhasusay cudurrada guud oo ka hawlgala isbitaalka magaalada Gaalkacyo doctorka ayaan ka wareysan doonaa arrimo badan oo ay kamid yihiin xanuunka COVID-19 iyo waliba talaalada kala duwan ee la soo saaray dadka qaadan kara iyo kuwa laga cabsi qabo ee loo baahan yahay inay taxadarka badan ay sameeyaan hadaba doctorka ayaan ku soo dhaweynaa doctor ku soo dhawow aad baan ku mahad celinaynaa sida noo aqbashay inaan wareysiga kula yeelano aad baa u mahadsantahay wariye Saciid runtii aad baan kaaga mahadnaqaynaa fursadda ay siisay inaan dadweynaha Soomaaliyeed la wadaagno wixii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 iyo talaalada loo soo saaray waliba insha Allah taala waxaan xoog saari doonaa talaalka Soomaaliya la keenay Oxford AstraZeneca oo bishii March hadda Soomaaliya ka bilowday marka insha Allah taala anaga bahda caafimaadka hadaan nahay dhaqaatiirta ujeedadeedu waxa weeye in dadweynaha Soomaaliyeed ay helaan xogta ku saabsan talaalkaas iyo faa'iidada ku jirta marka kale aad baan kugu mahadnaqayaa doctor aad baan u mahadsantahay barnaamijka runtii waxyaabo badan ayaa ku faahfaahin doonaa oo ka wareysan doonaa marka ugu horeysa COVID-19 waa sanad jirsaday bal halkee uu maray adduunka marka la fiiriyo maanta waa runta COVID-19 uu sanad jirsaday dib weyn runtii adduunka uu u geystay oo markay noqoto xagga nafeed oo dad badan ayaa runtii u dhintay nafta marka laga yimaado waxa ka daran sida uu adduunka u kala xiray oo wixii adduunka hawl ka socotay oo dhan xanuunkaas ayaa saameeyay annaga Soomaaliya runtii xanuunkaas aad uu noo saameeyay markay noqoto xagga dadka uu xanuunkaas u dhintay oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed baa u dhintay wuxuu kale noo saameeyay xagga mataqaanaa noloshii dadweynaha wuxuu kale noo saameeyay annaga Soomaalida hadaan nahay waxaan nahay dad aad qurbaha ugu xiran oo dadkii Soomaaliyeed ee qurbaha ka shaqeynayay lacagta soo dirayay ee wadanka dhaqaalihiisa ku tiirsan ayagiina markii wadamadooda la xiray runtii way saameysay dhaqaalihii wadanka marka mushkiladana waxa way xanuunkan qaabka kaliya oo lagu soo afjari karo ilaa hadda la xaqiijiyay ilaahay un baa naga dulqaadi kara laakiin waxa weeye in dadka la talaalo oo dadku ay talaal qaataan marka dadku talaal qaataan ayaa noloshii caadiga ahayd ee xafladihii ciyaarihii masaajidada lagu tukanayay kulli ay soo noqon karaan marka insha Allah doctor aad baa u mahadsantahay runtii dad badan baa ku geeriyooday Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu bareynaa inuu u naxariisto kuwa xanuunsanna oo ka dulqaado kuwa caafimaadka qaba anaka ka mid nahayna uu inaga badbaadiyo doctor marka laga hadlayo COVID-19 magaalada Gaalkacyo sidee buu uga jiraa magaalada Gaalkacyo runtii waa ka jiraa iyo gudaha Soomaaliyaba Soomaaliya hadda bishii March oo kale ilaa bishii March ama bishii saddexaad waxa xanuunka laga helay ilaa dad ku dhow 10,000 oo qof dad badanna waa u dhinteen marka annaga hadda waxaan soo gaartay mowjadii labaad ee xanuunka mowjadii hore waxaan soo gaartay adigu sanadkii hore March April iyo May afraad iyo shanaad ayaa ugu darnaa adigu markii la soo gaaray September iyo October waxa uu mooday xogaa inuu soo khafiifay hadda waxaan marka noo bilaabatay mowjadii labaad mowjadaan runtii waa ka daran tahay u moodaa kii hore oo dad badan ayaa xanuunka hadda uu saameeyay oo dadka calaamadaha leh oo xanuunka hadda uu naqaska ku hayo ama dadka calaamadaha caadiga ah kale oo qufaca iyo madax xanuunka yeelay runtii aad bay uga badan yihiin kii sanadkii hore marka magaalada Gaalkacyo aad buu xanuunka uga jiraa dadka la jiifinaya ee oxygen-ka u baahan aad bay u soo badanayaan dadka xaafadahooda isku dabiibaya xanuunka hayana aad bay u badan yihiin anu runtii mushkiladda waxaan u arkaa waxa weeye dadkeena Soomaaliyeed runtii xanuunka khatarta uu leeyahay ma siinayaan waxa arkaysaa qof baa ku imaanay wuxuu leeyahay waxaan waa iska hargab waa run dad badan buu si fudud ugu dhacay laakiin haddana dad badan baa u dhintay marka anu waxaan u fahmaa qofka Soomaaliga ama xanuunka wuxuu dareemayaa markii isagu ama uu dhinto ama hooyadiisu dhimato ama aabihiisu dhinto marka runtii arrinta kale oo muhiimka aan ku talinayo waxa weeye in dadku xanuunka khatarta uu leeyahay iyo heerka uu gaarsiin yahay ay siiyaan dad badan ayaa u dhintay dadkaas dhintay dad waxay anaga nala mid ah waardiina ehel ah la jecel yahay iyagu dad jecel
laakiin ugu dambeyn dee xanuunkii bay u dhinteen marka qof walba waxaa la rabaa inuu mas'uuliyad ka saaro ilaahay hortiis iyo adduunkaba doctor aad baa u mahadsantahay marka gaalkacyo waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka uu xanuunkan aadka ugu faafay marka maxaa isleedahay way keeneen inuu degdega ku faafo wallaahi horta gaalkacyo waa magaalo ku taala xudunta Soomaaliya bartamaha Soomaaliya wadooyin badan ay ku furan yihiin Muqdisho Garowe gobolka Soomaalida Itoobiya marka dad badan oo xanuunka wada ayaa soo galaya aniguna waxaan aaminsanahay xanuunku gaalkacyo dadka la baaro baa badan guud ahaan Soomaaliya inuusan xanuunka aysan ku dhaamin sababtuna waxa weeye dadka Soomaaliyeed aad bay isugu gooshaan xanuunkan hadda ogta China ku soo bilowday yani soo China ku soo bilowday maanta gaalkacyo jooga wax marka wadan gudihiis lagu kala xakameyn kara ma ahan marka magaalada gaalkacyo waxaan aaminsanahay inay tahay meesha ay ku taalo geographiga inuu ay aad u saameeyay adduunka tan iyo markii uu soo bilowday COVID-19 waxa lagu mashquulsanaa sidii loo heli lahaa talaalkiisa talaalo kala duwan ayaa la soo saaray Soomaaliya ugu dambeyntii talaal ayaa soo gaaray meelaha qaar waa laga bilaabay meelaha qaar in laga bilaabo la rajaynayaa talaalkan la keenay hadda ma la isku haleyn karaa horta talaalka noo keenay Soomaaliya la keenay oo ay noo keentay UNICEF baa Soomaaliya ka qaybinaysa laakiin waxa adduunyuhu ugu talagalay dunida saboolka ee wadamada saboolka ee Soomaaliya ka mid tahay waxa ka caawinay urur la yiraahdo COVAX ururkaas waxa ku midaysan hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo hay'adda la yiraahdo Gavi iyo UNICEF oo talaalka qaybinaysa ujeedada hay'addaas waxa weeye wadamada saboolka ah ee aan talaal soo gadan karin ee aan dadkooda siin karin in inta adduunyuhu uu dadaalkiisii meel isugu geeyo midowga Yurub Mareykanka Carabta African Union in inta hal meel isugu geeyo hal si talaalka loo wada qaybiyo marka anaga waxa noo keentay UNICEF COVAX talaalka loo keenana waa talaalka la yiraahdo Oxford AstraZeneca ilaa hadda waxa la soo saaray 12 talaal oo kuwa badan Mareykanka laga soo saaray China mid bay soo saartay Russia kuwa soo saartay Ingiriiska hadda kan Oxford AstraZeneca jaamacadda Oxford ee shirkadda dawooyinka AstraZeneca baa kaashanaya marka talaalkan warbixintii ama cilmi baaristii laga sameeyay markuu tijaabada mariyay waxay sheegtay inuu 90% uu ka difaacayo qofka xanuunka oo waxa la baaray dadkii talaalka la siiyay waxa la ogaaday dadka xanuunsaday oo naqaska u baahday oo la jiifay isbitaalada la jiifay inay 90% hoos u dhacday marka waa talaal aad u awood badan oo dadka xanuunka ka ilaalinaya Ilaahay baa naga ilaalin kare haddana ammaan ah oo waxyaabaha uu qofka u geysan karo ay runtii yar yihiin waxa ugu badan oo qofka isku arkay waxa weeye in mataqaana meeshii laga duray uu ku yeesho ay xanuun xogaa soo bararto qanjirada u dhow oo kale ay soo bararaan maalinta saddexaad afraad inuu qofku dareemo qandho waa laga yaabaa inuu dareemo ilaano jirkii baa la falgalaya talaalkii madax xanuun waa laga yaabaa inuu dareemo laakiin waxa soo dhan marka la eego dhibta uu leeyahay COVID-19 waxay noqonayaan calaamado yar yar marka waa talaal la isku haleyn karo oo runtii faa'iidada uu keenayna ay ka badan tahay dhibta uu keenayo wadamo kamida Yurub baa dhawaan markuu soo baxay hakiyay inkastoo markii dambe ay fasaxeen waxay sheegeen inuu ka dhashay xinjirow dadka uu ku dhacayna runtii aad u yar yihiin marka arintaas ka waran waa run wadamo badan oo ku yaala midowga Yurub oo ay kamid tahay Germany France Talyaaniga wadamo badan ayaa joojiyay sababta loo joojiyayna waa la hakiyay lama joojin yani si oo temporary ama kumeel gaar loo joojiyay sababtan waxa soo baxay walaac sheegaya in xanuunkani uu siyaadiyo dadka uu dhiigooda xinjiroobayo yani qofka markii dhiigiisu xinjiroobo oo halbowlaha xinjiro fariisato halbowlahaasi meeshii uu dhiigga u geenayay baa waxay noqonaysaa mayd ama oxygenkii iyo nafaqadii iyo wixii walba ka istaagayaan marka walaacaas soo baxay marka midowga Yurub dawladdu waxay dhaheen ilaa inta laga xaqiijinayo in talaalku uusan keenin xinjirow dhiig ah waa la hakinayaa hay'adda dawooyinka Yurub iyo hay'adaha dawooyinka ee dawladahaas ay gaarka u leeyihiin ayaa baaris sameeyay waxyaabaha la ogaado waxaa ka mid 17 milyan oo qof oo la siiyay talaalka dadka xinjirowga yeeshay waxay noqdeen ilaa 1000 qof ama 1000 wax yar baa dheeraa caadiyan marka dad mujtamac caadiga 17 milyan oo qof waxa xinjirow yeesha numberka wax ka badan marka ugu dambeyn waxa go'aan lagu gaaray in talaalkani uusan
kordhinayn dadkii uu ku dhacay xinjirowgu isla markaasna uu ammaan yahay arrintaasna aysan wax dhib ah aysan keenayn marka waxa ugu dambeyn hay'addii dawooyinka ee Midowga Yurub ay ogaatay in talaalka in la qaybiyo ay shardi tahay oo aan loo joojin karin arrintaas xinjirowgii dhiigana uusan siyaadin waxa ugu horeeyay oo talaalka isku daray ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson si uu micnaheedu dadweynaha u tuso marka arrintaasi hay'adihii dawooyinka waa diideen waxaana weli aaminsan anagu in talaalkaasi uu yahay talaal safe ah faa'iidada ku jirtana ay ka badan tahay khasaaradiisa doctor Soomaaliya waxa la keenay daawo ama talaal hordhaca talaalkaasna dadka dhan lama wada gaarsiin karo mudnaanta koowaad yaa leh in la siiyo waa su'aal aad u fiican mudnaanta koowaad waa la cadeeyo qofka iskale dadka iskale waxa iskale adigu saddex qolo waxa iskale number 1 horta bahda caafimaadka oo laano iyaga ku jira safkii hore oo bukaanada u shaqeynaya horta iyagu kulli waa in la talaalaa mudnaanta labaad waxa iskale dadka qaba xanuunada kordhinaya in COVID-19 uu khatar siyaada iyaga uu ku sababo ay kamid yihiin dadka dhiigkarka qaba dadka sokorta qaba dadka miisaankoodu aad u culus yahay oo cayilka zaa'idka qaba dadka xanuunada wadnaha qaba dadka difaacooda hooseeyo dadkaas ayaa iskale mudnaanta waxa kale oo mudnaanta leh dadka da'da ah oo 65 wixii ka weyn iyaguna talaalka xaq bay u leeyihiin marka dadkaas ayaa mudnaanta leh talaalka waxa la siin karaa qof walba oo ka weyn 18 caruurta 18 ka yar ilaa hadda iyagu mudnaan ma lahan talaalkan waxa loo ansixiyay oo qaadan kara qofka ka weyn 18 sano marka talaalka qofka ma iska qaadanaya mise intaan la siin karo baaritaan baa lagu siinaya waxa jira cudurro laga ilaalin karo aad baa maasan tahay waa su'aal kale oo fiican horta qofku marka uu talaalka qaadanayo talaalka waxa la rabaa inuu ku qaato goob caafimaad oo ay joogaan team ama group caafimaadka kalkaaliyaal farmasiistayaal dhakhaatiir qofku marka uu talaalka qaadanayo waa la wareysanayaa waxa la weydiinayaa waxa uu xanuun qabo dhan waxa la weydiinayaa wuxuu dawo qaato waxa la weydiinayaa maanta siduu dareemayo sanadka kale waxa fiican qofka maalintaas kale inuu uusan qandho sare lahayn qandhada caadiga ilaa adigu hargabka kale waa loo qaadan karaa waxa kale muhiimka ah inuusan qofku isagu qabin maalintaas uusan qabin COVID-19 arinta kale muhiimka waxa weeye qofku marka uu maalinta uu talaalka qaadanayo dawooyinkiisa hore ugu socday oo si dawadii dhiigkarka dawooyinkii sokorta dawooyinkii subaga dhiigga uu wadaya iyaga joojin mayo laakiin waxa fiican dawooyin oo aan daruuri ahayn inuusan qofku maalintaas bilaabin sanadka kale talaalku wuxuu keenaa in meesha qofku ay xanuunto marka qofku dad wax isdhigi karaan haddaan paracetamol sii qaato ka war muhiim ma aha in paracetamol qaatid markii hadhow xanuun yeertaa la gaaro waxa kale oo muhiimka waxa weeye qofku waxyaabo la weydiin wax kamid ah xasaasiyadda inuu qofku allergy qabi jiray iyada hadhow aan dib uga hadli doonaa insha Allah taala waxyaabaha kale oo muhiimka waxa kamid ah qofku maalinta uu talaalkaas qaato talaalkan caadiyan hadda Soomaaliya la keenay oo Oxford AstraZeneca laba jeer baa la qaataa adigu waxa u dhaxaysa 4 isbuuc ilaa 8 isbuuc marka muddadaas u dhaxaysa labada talaal waxa fiican qofku inuu talaal kala qaadan oo uu uusan talaalka iskale ku ekaado waxyaabaha kale oo muhiimka waxa kamid ah qofka markii talaalka la siiyo waxa la siinayaa kaar hadduu qaatay talaalkii Oxford AstraZeneca wareegga labaad waa inuu qaataa isla talaalka yani inta Oxford qaadatid talaal company kale ama shirkad kale sida Moderna ama Pfizer ma qaadan kartid marka qofku waa in kaar la siiyaa kaarkaas lagu cadeeyo maalinta qaatay iyo maalinta uu soo noqonayo waxa kale oo muhiim ah in qofku marka uu talaalka qaato uu goobta sii joogo adigu 15 daqiiqo oo kale dadka xasaasiyadda qaba iyagu waxa fiican ilaa 45 daqiiqo kale inay joogaan hooyada uur kale oo kale tusaale ahaan ma la siin karaa talaalka talaalkan iyo hooyada uur kale horta hooyada uur kale waa la eegaya yugado waxa jirta hooyo uur leh laakiin xanuunku khatarta uu ku hayo ay badan tahay sanad hooyo uur leh oo kalkaaliye caafimaad ah waxa jirta hooyo uur leh oo sokor qabta hooyo uur leh oo dhiig qabta hooyo uur leh oo difaacooda hooseeyo hooyooyinka noocaas ah waxa fiican talaalka inay qaataan ilaa hadda ma jirto baaritaan la sameeyay oo lagu ogaaday talaalku ilmaha uurka ku jira wuxuu u geysan karo laakiin talaalkan qofka lagu durayo waa talaal aan jirka waa virus dilan oo meyd ah oo qofkii lagu duray si hadhow qofku
uu u xasuusto jirkiisu marka waxay u badan tahay inuu ilmihi waxba yeeli karin marka hooyadu hadday tahay dadka khatarta ku jira hooyada uurka leh dadka khatarta ku jira oo dadkan soo sheegnay oo kala waxa fiican inay talaalka qaadato qofka xasaasiyadda qaba kala asaga bal ka war waa su'aal fiican iyaduna dadka xasaasiyadda qaba saddex nooc ayaan u qaybinanaa dad waxaa jira xasaasiyadda fudud qaba tusaale kale qof wuxuu qabaa sanboor wuxuu qabaa neef ama wuxuu qabaa oo kale ka soo qaad hadda koormo intuu kaniin qaatay ama irbad qaatay baa jirkiisii xoogaa nabra yar ka soo baxay dadka noocaasa talaalka way qaadan karaan kaliya waxay u sheegayaan qofka talaalka siinaya meesha waxa lagu sii haynayaa 30 daqiiqo kale waxa ku saara dadka qaba xasaasiyadda daran ama waxa la yiraahdo anaphylaxis xasaasiyadda daran waxa laga wadaa qof baa irbad buu qaatay ama cunno cunay ama shinni baa qaniintay ka soo qaad qofkaasi markii inta uu qaatay naqaska ku dhigay barasharkiisa dhacay wuxuu u baahdo faleembayaal iyo irbadda xasaasiyadda ee la yiraahdo tusaale kale ka soo qaad adrenaline dadka noocaasa guidelines-ka ama talooyinka hay'adaha caafimaadku bixinaya waxa weeye maalinta Austraalka qaadan maalinta ka horeysa in haddii uu dhakhtar uu leeyahay uu dhakhtarkiisa la soo tashto laakiin isaguna talaalka waa qaadan kara qofkaas laakiin waxaa shardi ah in isaga muddo 45 daqiiqo goobta lagu sii hayo waxaana fiican oo kale in goobta ay diyaar ku yihiin wixii qofkaas hadduu xasaasiyadii darnayd keeno sida inuu keeno naqas wuxuu keena barasharka hoos u dhacay in meesha ay diyaar ku yihiin tiimkii u adeegi lahaa in meesha laga helayo irbadii xasaasiyadda ee adrenaline in meesha laga helayo faleembayaal qofkii isla markii la siiyo oo barasharka soo kiciya intaas ayaa muhiim waana sababta aan u leeyahay qofku waxa fiican inuu irbadda talaalka ku qaato goob caafimaad oo ay joogaan dad waxaan fahmayaa waa hagaag doctor adoo soo koobaya qof corona qaba asaga ma la talaali karaa qofku horta maalinta hadduu corona qabo lama talaalayo laana sababta talaalka loo bixinayba waxa weeye in qofka uu xanuunka ka ilaaliyo laakiin qof uu ku dhacay coronihii ama covid-19 oo ka biskooday wuu qaadan karaa talaalka laakiin waxaa fiican inuu muddo 6 bilood laano daraasaadku waxay sheegeen ama baaritaanka la sameeyay in qofku uu xanuunkan markuu ku dhaco uu 6 bilood soo socdo difaac ka helayo marka waxa fiican qofka haddii uu antuu covid-19 ku dhacay uu ka biskooday talaalka uu qaadan karaa laakiin waxa fiican inuu mudnaanta siiyo dadka kale oo khatarta ku jira sida bahada caafimaadka dadka da'da dadka ma taqaanaa xanuunada khatarta qaba inuu dadka mudnaanta siiyo laakiin hadhow markii 6 bilood la gaaro kadib isagoo istalaali karaa aad baa umahadsantihiin barnaamijka intaas ay ku soo koobina wareyskana wuxuu ka mid noqon doonaa wareysiyo kala duwan aan idin soo gudbin doono haddii Allah uu ogolaado waxa uu mahad celinayaa Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jirde oo ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo kuna takhasusay cudurrada guud waxaan sidoo kale u mahad celinayaa bahda Royal Hotel oo runtii nagu taageeray goobtan quruxda badan oo wareysiga aan ku qaadanay aad iyo aad baa umahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh